adduunkan bidhbidhkiisa nololeed dhammaantii marka loo qiimeeyo aakhiro la dhinac dhigo waa wax yar baa ilaahay yidhi ilaa qaliil. waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosha adduun oo dhan ku sifaynaya inay tahay mataac. mataaca fi luga waxaa la yidhaahdaa maa yutamatacu bihi mima laa yabqa, waxa lagu raaxaysto ee aan waaraynin, waxa waxoogaa la isticmaalo ee markiiba dhammaada, kaas baa la yidhaahdaa mataac. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa qur'aanka adduunkani qiimaha uu ilaahay agtiisa ku leeyahay wuxuu yahay waa mataac baa la yidhi. waa mataaco markiiba wuu dhammaanaya. waxaa alle subxaanahu wa tacaala mataacnimadaa ku tilmaamayaa aayaad qur'aan oo tiro badan. wa qaluu rabbana lima katabta calayna alqitaal lawlaa akhartana ila ajalin qariib qul mataacu dunya qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqa. ilaahay wuxuu leeyahy waxay markii la waajib yeelay inay ilaahay tiisa u diriraan waxay odhanayaan maa dibna looga dhigo. waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi qul mataacu dunya qaliil, waar adduunkan inta lagaga raaxaystaa waa wax yar baa ilaahay yidhi, ee aakhiro ayaa khayru liman ittaqaa, qofka alla ka cabsado subxaanahu wa tacaala aakhira ayaa u fiican baa la yidhi. waxaa ilaahay qur-aanka ku leeyahy wafarixuu bilxayaati addunya wama alxayaatu addunya fi laakhirati ilaa mataac. nolosha adduun bay ku farxeen, adduunna aakhiro haddii loo eego waa mataacun baa la yidhi subxaanahu wa tacaala. dalika mataacu alxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lma'aaba. dunidatan aynu markaasi ku kor nool lahay waa dhaldhalaal yar oo dhammaanaya. ilaahay baa wuxuu leeyahy inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha, waxaan ka yeelay baa ilaahay leeyahy dhulka waxa kor saaran oo dhan ziina, wax lagu qurxiyo. maxaa loo qurqurxiyey? linabluwahum ayuhum axsanu camala wa inaa lajaaciluuna maa calayha saciidan juruza. waxaan u dhaldhalaaliyey baa ilaahay leeyahay adduunka kan in aan dadka ku itixaamo, inaan eego dadka kan iyo mowqifka ay adduunka iska taagaan, dabeetana waxaan ka dhigi doonaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala meel biriya oo la tirtiro. adduunku wuu yariyey, waa qaliil baa ilaahay yidhi. qiladu xaggay kaga jirtaa? yani markaad leedahay shay wuu yar yahay waa in shay kaloo la dhinac dhigaa u jiro, waayo waa laba shay markaad isku qiimaysa ad odhanaysaa kana waa yariyey kana waa badan yahay. maxaa la dhinac dhigayaa lagu qiimaynayaa? waxaa la dhinac dhigayaa waxa ay dadku ka dooranayaan. bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru wa abqa. waxaa la dhinac dhigayaa waa aakhiro. adduunka noloshiisaad dooranaysaan baa ilaahay leeyahy bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira. adduunka waxaa la dhinac dhigaya marka koowaad ee yaraantiisa lagu tilmaamaya waa aakhiro, waayo labada inaad mid doorato weeyaan. inuu qofku aakhiro iyo naciimkeeda doorto oo adduunkan u arko daaru ibtilaa inay tahay, iyo inuu adduunka bidhbidhkiisa iyo ku raaxaysigiisa jeclaysto oo aakhiro ilaabo aanu isku mashquulin. waa labada mid. idan adduunku waa qaliil. wuxuu qaliil ku yahay jannada waxa yaallaa badan. jannada ilaahay wuxuu leeyahy waa nicmo tiro badan, waa beero, waa jannooyin, waa webiyaal, waa kullu shay lagu nacimaysto. wa faakihata mima yatakhayaruun walaxmi tayrin mima yashtahuun. wax wal oo lo bini aadamku uu baahdaaba way taallaa. وتعالى أن قصوا أروري حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعنا به. حديث كان يا عباد الله، وحديث من أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري ومسلم. حديث كان وحو كهضل يونتصيا sidoo qofka mu'minkii sida looga doonayo inuu fursad wal oo khayr ku saameeysa inuu utilize gareeyo ama uu ka faa'iideysto. nabigu sallallahu alayhi wa sallam saxaabadii uga sheekeeyay min umuur al-ghaybiyat
وحول عرضت علي الأمم أمضها أيا لا يصهر لقبولي أو لصوب بندقي فرأيت النبي ومعه الرجل وحنارك النبي وآمنين ينقري قف قرى يا الله صعد النبي والنبي ومعه رجلان يا النبي اللي وقف يصور عيني آمنين والنبي ومعه الرهط يا النبي إن يرد قرب يروته والنبي ليس معه أحد يا النبي يوم القيامة صوح حاضري والرسالة دي مهمة اللورد يبي انتو قدمي ومضى وبندق اي كدينين وكلدي يوم القيامة يمي قال ثم رأيت وحن أركك بعدي سواد عظيم ضد ميلتو غفر بضن فظننت وحن ملي ومضى فراها بدنيني ومضى إذا أيتهي وحل يقولي إنه موسى وموسى يدد كيسي لكن بالكر في رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحل مركزان أركي ددكي النبي موسى دد كبضا ودنعا أدعي وكسي فربطي أمد النبي موسى عليه السلام وحل يقول يا محمد تاسوا أمد دادي وحانا أقوه الرئية الضوباتا كن ويوم القيامة حساب الآن كقلية نمباك عي مركز صحابية الحياة فرصة يا عباد الله أدونك واتشانس وفرصة إنتي نهال كم فرد ده يا كمان تيدين الله هذا يهدوها له فرصة تجارة وكل دقائق يوكفى إيدي سنة هدوها له فرصة إن يركب جرسده أو قروح بدون لبن معان وكل دقائق يا صاحبك وصباحات ولك الرجاية وأدونك والدنيا فرص وفرصة سيدنا أدون كان نقبرة إنه أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم آخر قبرة متشرين نبى مركون فرين تاو دقيستي النبي كسعة صلى الله عليه وسلم ورك الله ور مركون دقيستي أيكعي فقال يا رسول الله اسأل الله أن يجعلني منهم إلهي إي ويدي إنه تضباطا كاكونا جنة حساب الآن كقلية إقام متدقو إنه إقام متدقو إنه كم من نقضبان دونه يا رسول الله يقول الله إلهي ننكا تضباطا كاكون قدر نبا كذا بكعي قال يا رسول الله أنا إجد بقى ننكا قال لا سبقك بها عكاشا ننكا سكهري وفرصة أدونك وفرص وشانس لقسيي وفرصة لقسيي ما أنتين هكذا نستعجنه وإن أبقنا مساجد لقما يابو إن ضدك إسلي دقن إن كنت كذا مساجدك لقما يابين عروتي نجيسان لقما يابين الدمر كين كنت كذا لكن وفرصة إلهي كسيي وشانس إلهي كسيي وحكا كان حافظ دا أبو كو كان مساجد كو كان مسجد كهال كان أيو أديك كو كان فرصة دا وفرصة انت نبضن وحين حسابني انت إن الصوق شيء انت نقبح لهيد يهديان بحيو انت إيه هريسة لكن فرصة باكو الساكتة هديانت كقيب قادني وأنا كقيب قادني مانت عكاشة رضي الله عنه النبي وحولي سبقك بها عكاشة نيكاسك أقوه الرئي بالشانس كأك لما حسابني الصلاة ديسي لعله لما حسابني الصوم تيسي لعله لما حسابني وحو قيستي وهي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري شنذا بلا حسابك قليان لما وريسانيو والحجك عن كيبوها صدقني عن كيبي أهي صلة الرحم عن كيبي أهي عمرني عن كيبي أهي وهي تضباطا كاسو كقيب أيو كقيب قاطع أدونك وفرص يا عباد الله وفرص إفكأة يقار آخرة إنكو هذه يقول فريد نمدينه يحكمدينه يحكمدينه وحينو دول صار يلا حاد كنا إنه فرصتها أدون كان إنه كفى إليسنا نيم ولا بينه تهاجر نقدو الدنيا إنه الدكان يرفع تابو الدنيا إنه بلغن يري يبسد أبو الدنيا بأقل يرزق يبسدو لكن كي آخره أنت بدن لرنتد بينك ساعة
nebigu sala allahu calayhi wasalam fursad walba uu arko oo khayra uu ka faa'iidaysan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam ha yaraato ama ha weynaato ilmo yar buu arkay oo cuntada marra halkan ka qaadanaya marra barta ka qaadanaya marra gacantiisu halkan u boodayso aan cuntadii nidaam u haynin markaasuu gacanta ka qabtay faqaala yaa ghulaam war idhegayso yarkow idhegayso kow sami illaah horta bisinka qabo ma wax weyn baynu aragnay innaka lagama yaabo laga yaaba in hodheelka qofka ku hor fadhiya kula cashaynaya ama kula qadaynaya inuu bidixda iyo midigta labadaba ku cuno aanada adugu dan ka gelin laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam ilmihi yaraa buu qabtay faqaala yaa ghulaam sami illaah horta bilbisinka qabo gacanta midigna ka cun cuntada meesha kugu dhowna ka cun waa fursad cabdullaahi bnu cabbaas ayaa la fuulay faras daabadiisii faqaala yaa ghulaam jidhu buu ka faa'iidaystay nebigu sala allahu alay maya qaala yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat war waxbaan ku barayay dhegayso wuu ka faa'iidaystay waa fursa abu bakr asidiiq radia allahu canhu ahli siyar waxay idhaahdaan nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu hor fadhiisuu muslimay ayuu yihi yaa rasuula allah shaqadu waa maxay dee waa dacwad buu yidhi wuu kacay من أصحاب الجنة 6 من المبشرين بالجنة أيو أبو بكر كان رضي الله عنه 6 بو كان من 10 مبشرين بالجنة وفرصة وكفى إذا يستي إنكم فائدة دائما laga yaabo inaynu aakhiro u riixno laakiin waxaynu u baahannahay inaynu ka faa'iidaysano fursaddu ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala ka faa'iidayso maalin jimco weeye safka kaalay yacni kaaga soo horrayn dhinaca midig ka fadhiiso wahaakada cibaad allah aquulu maa tasmacuuna adduunyadu qiimo badan ma leha waa meel lagu gaboobo adduunku gabowbaa yaalla 4 cudur oo aakhiro aan oolinba adduunka yaalla cudurka koowaadi waa gabow adduunka waa lagu gaboobaa ninkii quruxda badnaa ee lixaadka lahaa ee timihiisii gadh iyo madaxba madoobaayeen ee indhihiisu fayda ahaayeen ee u tallaabsanaya la yaabka lahaa mise waa gabowo gadhkii timihii waa caddaadeen indhihii araggii waa soo guray dhegihii waa cuslaadeen hadalka kor igu qaad buu ku leeyahay ninka itaal roonaa oo ka qurux badnaa ninkaas waxaa lagu leeyay weli lama arag ninkaas ku dhaxdhacay aad moodid shay naqaska laga saarayo kale adduunku waa meel lagu gaajoodo gaajaha taalla intaa waxaad maqlaysaa waxbaa dhammaaday waxbaa go'ay waxbaa intaa kale waxaysan adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugtaa taalla waxaa dhakhaatiirtu dabaqya dhisatay jaamacado looga soo baxay kaadha loo goosanaya farmasiya loo furtay weydinka arkay bugtaa taalla adduunka geeri baa taalla noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo gabow iyo gaajo iyo bugta meeshan taalla 4taa cuduri aakhiro laakiin lagama yaqaano qofka ilaahay jannadiisa u geliyo wadaliilu calaa daalik fii xadiidi saxiixi muslim markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinaya inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan ahlu janna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan dhakhtar lagama yaqaano lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhiro shaqa kuma laha adduunka waxay goosanayaan ha goostaan laakiin aakhiro ditooriga dhakhtar iyo waxaa lagama yaqaano jannada dhexdeeda inna lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan waxaad leedihiin dhallinyarannimo inaad ku noolaataan oo idinaan weligiin gaboobin awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin bal cajaa'ibkaa eeg bal meeshaas eeg awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebelaad leedahay awowgaagii tobnaad iyo adigu 33 jir baa tihiin isku fil baa tihiin awowgaagii tobnaad meeshan aan laisba soo gaadhaynba inna lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan adduunyadu mar waa buug mar waa dayr mar waa diraac mar waa jiilaal waa iska arkaysaa intaa oo qofku wadaad maanta wax haysato biri wax ma haysatid reer iyo xaas hadduu jiro biyihii waa madheen baa lagu odhanaya waa go'an yihiin raashinkii waa dhammaaday saliiddii waa dhammaatay biilkii waa go'ay
maa lahaa min nafaadin risiqa jannada yaalla wax dhammaanayaba maaha way ku aftaqaannaa jannadu markaad istidhaahdo war maanta malaha waxaa kugu wacnaa xoogaa tufaaxa inaad cunto laan durdurinaysaaba kuu imanaysa waatan waa ku aftaqaannaaba iska hurhurun weeye wixii kale adeegahana khiyaar baa laguu sameeyey wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an mansuura wiilasha meeshaa joogo quruxda haddaad aragto luul saa meesha loogu firdhiyey baad mooddaa baa ilahay leeyahy subxana wataala aakhiro waa meel aan lagu dhiman geeri ma jirto inna lakum an taxyaw falaa tamuutu abadan waxaad leedihin inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan meeshaasaa qofka mu'minka ah ee wax fahmaya halkaasu inuu u shaqaysta la rabaa in qofku fadhiga ka kaco oo habeennadan adduunka aadan ku tiigaalin diintaada gacanta midig aad ku qabsato adduunyadaadana gacanta bidix aad ku qabsato si raganimo leh ilaahay u caabudid adduunyada iyo waxa xumaanta aad iska ilaalisid waxyaabaha macaasida maanta faraha badan ee taalla ee fududaadee jeebka lagu wada sitaayo moobeelladii iyo wax kasta oo adiga arkayo mid weyn iyo mid dhallinyaro ahba jeegadii baa la wada xiirtay tima saa u wada taagan kaannahaa ru'uusu shayaatiin aad mooddi waxay aadan garanayn baa la wataa ilaahay ogow qofka muslimka ahow mararka qaarkood waa lagu ibtilaynayaa waxyaabihii lagaa xarrimay ee macaasida ahaa ee fitanta ahaa ee xumaa ayaa lagugu soo daynayaa waxaa ilaahay ku eegayaa bal inaad waxaan ku daqaqanto oo aad faraha la geshid iyo inaad is-ururiso oo tidhaahdo ilaahay imtixaan buu aniga ila damcay nooc kasta ahow wadaliilu calaa daalik ilaahay qur'aanka wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum u fiirsaada halkaa dadka mu'miniinta ohow ugaadha ha dilina ma ugaadhsan kartaan idinkoo cumro soo xidhay ama xaj soo xidhay ma ugaadhsan kartaan haddaad berriga maraysaan iska ilaaliyaa layidhi saxaabadii rasuulku way soo baxeen waxaa la soo cumraa loo soo baxay iyagoo waddadii maraya mise deeradii iyo sakaaradii iyo biciidkii iyo gelanuugtii wixii ayda ku jiray ayaa la soo saaray markaasaa awrtoodii iyo fardahoodii bay saa u dhex maraysaa tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilghayb ugaadhii lagu rafaadi jiray ninka sidaa yidhaahdee laaca garanuug weynaatay buu soo qabanayaa kay ka yara duugsantayna waranku sidaa u gelin karaa maxaa ilaahay saa u yeelay ilaahay markii laydin yidhaha ugaadhsanina waxaa loo soo saaray waa lagu eegayaa bal waxa kan inaad ku daqaqantiyo in kale ilaahay si uu marka u ogaado qofka rabbi ka cabsanaya allah in ka cabsanno ilaahay dembigeenna ha dhaafo khaatumadana allah inoo hagaajiyo ilaahay islaamnimadii ilaahay waxa inaga doonaya innaka marka horeysa waa maxay inaan maaragtaan amarkiisa aan qaadanno sidii uu naga doonaya waa inuu naga helaa adduunyadana meel baahida bini aadamka lagu dhammaystiray ma aha adduunyadan waa caalam ujeeddo keliya bini aadamka loo keenay ujeeddadu waa maxay dadku inay adduunyada kala tagaan iimaan iyo camal saalixa halkan raaxa adduunyada ma taallo adduunyada raaxa hadday taallana dadka ilaahay jeclaa buu raaxada siin lahaa low kaana liibni aadama waadiyan min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan walan yamlaa faahu ila turaab wayatuuba allahu calaa man taaba nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam adduunyada raaxa ma taallo meel baahida bini aadamku ay ku dhammaystirmaysana ilaahay adduunyada kama dhiginba kulligeen nin walba baahi nambarraa ka qaldan ninay nambarro u saxsayin caalamka ma jiro gaal iyo islaam caddaan iyo madow ka adduunyada ugu dhaqaalo badan ilaa ka adduunyada ugu hooseeya dhammaan way baahan yihiin baahidooduna adduunyada kuma dhammaystirmayso nebigaa sheegoo yidhi inaadan haddii la siiyo tog dahaboo socdo qulqulaaya kun labaad buu jeclaan buu rasuulku yidhi meel baahida bini aadamku ay ku joogsatay adduunyada lagama dhigin bal adduunyada waxaa loogu talagalay meeshii laga sahay qaadanaya sahayda la qaadan waa maxay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahayda la qaadanaya waa la kayaab weeyaan alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi raxiil buu imaam cali ku fasiray taqwadda ilaaha jaliilkaoo laga cabsado qur-aanka oo lagu dhaqmo qanaaco oo la yeeshuu qofku arsaaqadda intii eebba ugu talagala uu ku qanco maalinka dadku ay u guuri doonaan loo intiqaalayana waa inuu addoonka mu'minku u diyaargaroobo weeyaan adduunkan waa meel laga sahay qaadanayo weeyaan sahayda la qaadan waa maxay sahayda la qaadan waa iimaan iyo alla kayaab weeyaan wax kale maaha
iimaan baa la qaadanaya yalla ka yaab marka insaankan waxa adduunyada loo keenay bini aadamka laga dooni waa inuu fahmo waxa ilaahay uu ku siiyey ee nicmadoo dhan wuxuu ugu talagalay inaad u adeegsato inaad ku gaadho macrifada ilaahay taasaa adduunyada lagu keenay laakiin nasiib darro ayaan darro dadku maanta dariiqii loogu talagalay intay ka weecdaan kulligeen waxaan badanaa dadku maanta waxay ku dadaalayaan ilaa man raxima rabbi siday makhluuqa u garan lahaayeen iyo siday makhluuqa uga faa'iidaysan lahaayeen nebiyaduna calayhim assalaam waxay la yimaadeen siday bini aadamku khaaliqa u garan lahaayeen khasaa'inta khaaliqana ay uga faa'iidaysan lahaayeen taasay nebiyadu la yimaadeen nebi ilaahay ma soo saarin oo qur-aanku ma sheegin dadka maaragtaane u sheegay ama u tilmaamay sida arrada looga faa'iidaystee bal nebi walba wuxuu la yimiday siday dadku ay ilaahay ugu xidhmi lahaayeen deedna iimaankii camalka saalixa ay khasaa'inta ilahi ugaga faa'iidaysan lahaayeen